بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaynu joognay darsigeennii iyada oo baytulmaqdis uu galay gacantii nimankii masiixiyiinta ama kiristanka ahaa oo markay qabsadeenna dadkiina ay laayeen macaalimtii magaaladana ay wax badan ka bedeleen siiba masjid al-aqsa laftiisa oo qayb ka mida kiniisad bay ka dhigeen qayb ka mida waxay ka dhigeen meel ay degaan nimankii fursaanta u ahaa waliba gaar ahaan fursaanta isbitaariya la yidhaahdo qayb kaloo ka mida waxay ka dhigeen meel hubka la dhigto qayb ka mida waxay ka dhigeen meel fardaha lagu xidho qayb ka mida yacnii macaalimtii masaajidka o dhan way baabi'iyeen waxaanay noqotay inay gacantooda uu ku jiro 90 sannadood oo dambe 90 sannadood waa waqti muslimiintu iyagu isku mashquulsanaayeen baqdaad gudaheeda la isku haystay nimankii baatiniyiinta ahaa ay soo baxeen xashaashiinta kuwii la odhan jiray ay yimaadeen oo ay bilaabeen waxaana ay assassinationska u yaqaaneen xataa la yidhahda kelmadda assassination ee af ingiriisiga ahi waa xashaashiin oo la tarjumay ayay kelmaddaniba kuma jirin luqa ingiliisiya qabla kuwaasi intii aanay imanin ikhtiyaalaadkaasay bilaabeen caalam alislaami oo sidaasiya ayaa waxaa bilaabmay saxwa islaamiya jadiida saxwadaasi waxay isku dayday baatiniyada inay radido boqorradii iyo nimankii maadiyiinta ee isdilayay in la radiyo dadka in aakhiro la xasuusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala in dib loogu xidho waa saxwada raggii caanka ka ahaa wakhtigaas ee saxwadaa dib u bilaabay waxaa ka mid ahaa abu xaamid alghazaliy raxmat ullaahi calayhi imaamkii la odhan jiray waxaa ka mid aha cabdilqaadir aljaylaani sheikhii la odhan jiray allah wada naxariisto culimmadaasi waxay bilaabeen tarbiya ruuxiya xooggan oo ah dadka in maadiyaadka laga kaxeeyo oo aakhiro iyo ilaahay la xasuusiyo dabeetana waxaa bilaabmay jiil cusub oo muslimiina gobolladii muslimiinta ee kala googoonaa waxaa jiray meesha xalab la yidhaahdo waxaa haysan jiray nin la yidhaahdo aaq ibnu sanqar oo ataabigtii ka mid ah wiil uu dhalay oo zanki la odhan jiray naanaystiisuna cimaaduddiin ahayd cimaaduddiin zanki ayaa raggii saxwadaa ku barbaaray ka mid ahaa dabeetana wakhti markii uu muuqday geesinimadiisii iyo cibaadadiisii iyo wixiisii ayaa ninkii boqorka ka ahaa baqdaad wuxuu u dhiibay magaalada muusal la yidhaahdo inuu madax ka noqdo muusal markii uu dejiyey buu haddana ballaadhsaday oo xalab iyo xamaa iyo ximis buu ku soo daray wuxuu bilaabay dagaal inuu la galo nimankii masiixiyiinta ahaa wuxuu dib u soo xoreeyey saddexdii imaare aan idiin sheegayay shalay mid ka mid ah imaaratu ruha ayuu dib uga soo xoreeyey nimankii saliibiyiinta ahaa isagoo dagaalka sii wada oo qalco la yidhaahdo jacbur markaasi xisaar ku haya oo habeenkii u seexday ayaa habeenkii ikhtiyaal lagu sameeyey waa la dilay dadka badh waxay tilmaamayaan nimanka xashaashiinta ahaa waaxid min albaatiniya baa dilay badhna waxay tilmaamayaan wiil u shaqaynaya armu isaguba baatiniga ahaa calaa kulli xaal habeen isagoo hurdaa la dilay waxaa dhaxlay wiilkiisii nuuraddiin zanki lo odhan jiray wiilka uu ka tegey wuxuu ahaa nin geesi ah oo caabid ah oo zaahid ah oo askarta iyo racyaduba ay aad u jecel yihiin hamigiisa ugu weynina wuxuu ahaa qudus inuu dib u xoreeyo nuuraddiin zanki hamigiisa ugu weyn bay yidhahdaan wuxuu ahaa qudus inuu dib u xoreeyo weliba wuxuu rumaysanaa inuu xoog u xoreeyo waxay yidhaahdaan baldwinkii saddexaad boqortooyadii qudus ka dhisnayd markuu dhintay ayaa loo yimi oo la yidhi iminkaa boqorkoodii dhinto ay daciif yihina weerar ma weeraraya buu yidhi ha murugo dhammaystaan nin la yidhaahdo camuur alawal oo ah kii ka dambeeyey baldwiinkii saddexaad ee qudus qabsaday oo ay walaalahaayeen
baldwiinka kan ayaa bilaabayba inuu isagu masar weeraro masarna markaa faatimiyiintii baa haysta masar markuu weeraray waa waqti dawla alfaatimiyana ay sii daciifayso markaa 300 sano dhow bay jirtaa waana aakhirkeedii markii dacfigu uu ku batay dabeetana boqorkii faatimiyiinta ahaa wuxuu ka dalbaday nuuraddiin zanki inuu ciidan u soo diro oo nimankan masiixiyiinta inaanay masar qabsanin sidaasi darteed baa waxaa loo diray salaaxaddiin ayuubi iyo adeerkii ninkii la odhan jiray asaduddiin shiirakuh baa mala la yidhaahdaa iyana asadulghaaba bay la macnatay af carabigana asaduddiin unbaa la yidhaahdaa ninkaasi ciidan wataa la diray masar bay tageen boqorkii baa haddana loo tegay faatimiga ahaayee waxaa lagu yidhi war nimankani waa nimankii shaamna qabsaday hadday meeshan kuugu yimaadaan adna way ku inqilaabayaana waa ku qabsanayaane nimanka iska celi oo sideed isaga celin karnaa waxa weeyaan inaad la heshiiso kiristanka nimankan nasaarada ku soo weeraraya heshiis la gal wuxuu ogolow boqortooyadaadu ha kuu badbaado nimankanna iska celi ninkaa faatimiga ahi waa taariikhdu ay u qortay buu ka tegey إن كان ملكي سيذهب ومصر ستسقط فإنني سأموت قرير العين إذا ذهب ملكي إلى يد مسلم بدلا من أن يذهب ليد كافر سليبي حاقد ninka faatimiga ahay wuxuu yidhi boqortooyadaydu inay baaba'do oo masar la qabsado anigu waxaan ku samahay buu leeyahay oo ishaydu ay ku xasilaysaa inay nin muslima gacantii gasho halkay nin gaalo kristana gacantiisa gali lahayd buu leeyahay sidii bay ku difaaceen salaadiin iyo adeerkii nimankii masiixiyiinta ahaa dib baa loo celiyey nuuraddiin zanki laakiin isaga waxa uu muuqda baytulmaqdis inuu furto walidaalika isagoo aan weli weerar ku qaadin buu mimbarka dhistay mimbarka baytulmaqdis 69 miyay ahayd markuu ninka Australia ee sahyuunigii gubayay ilaa 69 uu yaalay waa la gubay markaasi markii masaajidka la gubayay bacda nakba markii juun laga soo saaray muslimiinta nakbadan u dambeysay Israa'iil ay qabsatay August 22keedii baan filayaa ayuu gubay mimbarkaasi ninka waqtigaas ayuu mimbar u dirtay inay u sameeyaan oo ah mimbarka uu dhigi doono baytulmaqdis marka uu furto laakiin nuuraddiin geeridu kuma simin ee wuu geeriyooday salaaxaddiinna adeerkii markii uu ninkaasi geeriyooday dib uu soo noqday oo Muusul buu dib ugu soo laabtay salaaxaddiin baa lagaga yimi markaa iyo ciidankii meeshii masar ahaan jirtay salaaxaddiin waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo sabir badan oo xakiima oo geesiya oo haddana cidduu ka adkaado mutasaamix jiddan abay yidhaahdaan aad iyo aad u naxariis badan oo dadka sii daaya wuxuu isku dayay markaa salaaxuddiin masar inuu hagaajiyo boqorku boqor aad u jilicsan buu ahaa masar buu hagaajiyey akhiiran waxa dhacday xataa raciyadii inay aad u soo dhoweeyeen salaaxuddiin nimankii katabada u ahay wuxuu qori jiray xataa sultaankan faatimiga ah waxaa ka mid ahaa alqaadi alfaadil ee macruufka ee ninka ugu caansan ee salaaxuddiin wax ku qorayay ah raggaasoo dhan mustashaariin buu ka dhigtay way soo dhowaadeen salaaxuddiinna wuxuu aqbalay ninka faatimiga boqortooyadiisa inuu u daayo laakiin waddanka inuu islaaxiyo boqorku faatimigii buu ahaa salaaxuddiinna waddankii buu islaaxiyey muddo kadib ayaa ninkii faatimiga ahaa tiisii u timi isna waa geeriyooday wax carruura wuxuu ka tegay wiil yar wiilkii yaraa baa la yidhi ha la boqoro kaasuu yidhi war la boqori maayo naga tagordo wiilkii yaraa buu salaaxuddiin markaa uu eriyey saasuu ku qabsaday waddankii masar loo odhan jiray faatimiyiintaasi oo dowlad ballaadhan ahayd waayo maqrib alcarabi bay soo qabsadeen in badan oo ka mid a masar bay xukumayeen markii dambe shaam iyo xijaasna waa ku darsadeen iyo yamanba markii ay kani dhacay ee uu salaaxuddiin qabsaday waxay noqotay dowladdii ay faatimiyiintu ka talin jireen oo dhan inteedii badnayd inay isaga soo raacdo markaa yaman
xijaas iyo shaam wixii ka hadhay inta masiixiintu qaadatay mooyaane waxay hoos yimaadeen dowladdii uu ka talinayay salaaxaddiin alayuubi salaaxaddiin muu sheeganin khaliifo sidii nimankii hore ee wuxuu yidhi khudbadda ha loo akhriyo boqorka jooga suldaanka degan khaliifat almuslimiin ee baqdaad jooga waxaanu aqbalay inuu caalamulislaam oo dhan la mideeyo dagaaluu markaa bilaabay isagu nimankii saliibiyiinta ay isdilayaan dayru balax iyo ghazadan hadda la isku dilayo iyo casqalaan dhulkaasuu dagaalla ka bilaabay 1980kii taariikhda miilaadigii markay maraysay ayaan usquulkii masriga ahaa wuxuu ama ciidan badeedkii masaaridu waxay ka hor tageen safiinooyin ama ciidan badeed ay faranjigu wataan oo meesha caka la yidhaahda la isku haleelay wuu ka guulaystay boqorkii markaa baytilmaqdis ka talinayay oo baladweynkii afraad la odhan jiray ayaa hudna ka dalbaday heshiiskii buu la aqbalay heshiis 2 sannadood in hudna alla galo ayuu qaatay waxaa jira nin faransiis ah oo René de Chalton la yidhaahdo geesiyadii la socday ciidamadii saliibiyiinta ee yimi ahaa oo guursaday gabadh haysatay Antakiya boqorad ka ahayd buu guursaday deetana boqor buu ka noqday kadibna muslimiintu weerar ku soo qaaday akhiiran ciidamadii muslimiinta nin ka mid ah qabtay 17 sannadood buu xalab ku xidhnaa waa la soo daayay mar dambe haddana wuxuu yimi baytilmaqdis gabadh kaloo boqoradu haddana guursaday dabeetana urdun qayb ka mid ah kark iyo dhulkaasi oo dhan buu qabsaday iyadoo heshiis ay kiristanku xaggan muslimiinta kala galeen buu ninkani wuxuu bilaabay inuu qutaaci طariiqnimo sameeyo oo muslimiintii shaam ka tagtay ee xajka qabanaysay ayuu jidgooyo u galay wuxuu laayay iyo wuxuu dhacay iyo wuxuu boobay buu ka dhigay bale waabuu kibrayo wuxuu yidhi maka iyo madiina waa inaan qabsadaa xabaasha nebi maxamedna waa inaan soo qodaa wuxuu tegey bay yidhaahdaan ghaza iyo meelaha kan buu soo jarjaray wixii ku yaalay geed oo dhan buu soo gooyey dabeetana awr buu ku raray meel cidla ah buu ku sameeyey doonyo wuu soo raray badduu keenay dabeetana wuxuu bilaabay inuu duulimaad bilaabo duulimaadadiisaasi waxay soo gaadheen qaybo ka midii ciidaan meeshan la yidhaahdo waa meel xalaayib ka mid ah halkan ay isku haystaan had iyo goor masaarida iyo soodaanta oo dekad qadiima ah waa dekadihii saxaabaduba ay ka tallaabeen baan rajaynayaa markii islaamku uu dhulkan ka gaadhayay ilaa halkaasuu soo qabsaday bal ee ciidamadiisa badhcadan bay soo gaadheen baa la yidhaahdaa salaaxaddiin alayuubi markaa wuxuu ka mashquulay dagaaladii ay kiristanka isku hayeen oo xaggaa usii jeeday dib buu u soo noqday nimankii muwaxidiinta ahaaba wuxuu ka dalbaday oo iyagu badmareenna doonyo lahaan jiray inay rag u soo diraan doonyo iyo farsamooyin u sameeya ninkan buu dagaal ku qaaday kan iyo ciidankiisii bay dib u soo celiyeen maadaama uu ninkani burburiyey ama uu dhacay xujaajtii muslimiinta ee meesha ku socday ballankiina uu buray wuxuu bilaabay inuu argoosi ku sameeyo nimankaasi masiixiyiinta ah ciidamo dad ay leeyihiin oo soo xaj tagiyo waxbuu 2500 soo qabtay aduu haddana kadib heshiis baa lala galay uu soo daayey ninkani laakiin rabshadii ma daynin markii dambe kan iyo kii haystay qudus oo isna naagu guursaday ku helay meesha oo aan qoyskii boqortooyada ahayn labadaasi oo laba faaris ahaan jiray baa waxay isku waafaqeen salaaxaddiinkan ba maynu weerarno dabeetana cahdigii wuu buray salaaxaddiinna wuxuu u diyaar garoobay macraka kama dambaysa inuu galo ibnu kathiir fii bidaayatihi markaasi wuxuu leeyahay salaaxaddiin oo wata 12,000 oo askari oo ciidan ah iyo waxoogaa mutatawiciina yacni mutatawiciinta waa dadkan xamaasadooday ee jihaadkun soo raacay laakiin ma aha dad tababaran maaha iyo faranjigii oo sita bay yidhaahdeen saliibu salbuut waxay yidhaahdaan waa kii ciise
lagu salbiyey saliibkii ciise lagu salbiyey oo la kala dhexdhexli jiray wax ka hadhay ayay aahaartoodu sheegaysaa markaa saliib barakaysan inuu yahay bay u haysteen oo baytilmaqdis iyo meelahan bay keeneen markaa nimankani si ay u caddeeyaan inay masiixnimada dhabtaa u dagaalamayaan saliibu salbuutna way soo qaateen iyagoo ama 50,000 ama 63,000 oo askari wata ayaa la ishelay dagaal baa dhex maray marka hore wuxuu soo qabsaday salaaxdiin alayuubi tabariya iyo intii biyaa macaan oo dhan buu ka qabsaday iyaga dhanka bilaa biyaa buu dejiyey meeshan xitiin la yidhaahdo tuulo yar weeyaan oo hadda ka mid ah tuulooyinkan ay haystaan nimanka waa baaba'day iminka laakiin waddanka israa'iil hadda lagu sheegaya bay ka mid tahay qaryadaasaa la isku haleelay subax sabtiyeed rabiicu alaakhar 5 maalmood ay ka hadhsantay 583 hijriyada oo u dhigma 187 miilaadiyada dagaal adag baa dhacay dagaalka waxba tafaasiishiisa geli mayno laakiin waxay dhahaan wuxuu ku gabagaboobay dhowr iyo 30,000 ama 30,000 in laga laayo ciidankii 30,000 maxbuusnimo loo qabto almost inna waa la gumaaday inna maxbuusnimo loo qabtay maxbuusnimo qura maahee labadii boqorba wuu qabtay boqorkii la odhan jiray Guy de Lusignan oo ah kii Qudus markaa ka talinayay iyo Renaud de Chatillon dashtayn bay qoraanad iyo goor kutubta muslimiintu kana Arnaat ama Ariyaat bay u qoraan laakiin waa laba magac oo Faransiis ah labada boqorba gacantu ku dhigay markaasi waxay ka mid noqdeen maxaabiistii la qabtay labada boqor markii uu qabtay kii muslimiinta laayay wuxuu yidhi hala dilo kaas marka hore xujaajta laayay waxaasoo dhan isaga markiiba wuu ka takhallusay waa la dilay kii kale wuxuu yidhi waan ku sii daynayaa laakiin ballan qaad inaad shaam oo dhan ka tegayso oo France ku noqonayso faransiiskan ku noqonayaa buu yidhi siida waa la sii daayey aduu shaam wuu ka guuray France ma tegina Qubrus buu dawlad kale ka aasaastay Qubrus iyo meelahaasuu iska degay nimankii la odhan jiray addaawiya walisbitaariya daawiya isbitaariyadu waa niman berigii hore intay meesha yimaadeen odhan jiray xujaajtan kiristankee timaada meeshaan u shaqaynaynaa akhiiran ururo isu beddelay akhiiran ururo mobilized oo askaraysan noqday markii dambena noqday mutacasibiinta ugu adag ee u dagaalama masiixiyiinta labadaa gruubna wuxuu yidhi intii ugu badnayd iyagana laga takhalluso labadaa gruub oo ay yidhaahdeen muslimiintu waxay caan ku ahaayeen inay nebiga caayaan kuwaana wuxuu yidhi hala laayo gruubadaa uu ka takhallusay wuxuu markaa gacanta ku dhigay Jolan ama Golan buurahan la yidhaahdo agaarkooda oo dhan Urdun buu qabsaday Tabariyuu qabsaday Cakkuu qabtay Cakka heshiis la gashay Cakki waa saddexdii meelood ay nudin masiixiyiinta ka dhistay boqortooyooyin Rohaz Cimaaduddiin Zanki baa hore u qabtay عكنا هذا لقبتي أنطاكية يد وقت بدن بيقادته عهد المماليك ببرس وقت جيسي أي يد دبلو سعلي شام انت دي بدنيت قعنتو كل جاي عكاية غير كده يدل كاي لا أفركونه محبوسة مسلمين لجوا هيي بسود دايي مدن فلسطين انت دي بدنيت بدبو قبتي لبنان قيبت يدن هوسة الصيدا يا بيروت يا كوكان يا نقعنتي سوقلين غزة يا عسقلان يا نابلس يا بيسان يا راضي الغور ودنبا قعنتودا soo galay waxay yiraahdaan muslimiintu marka ay ka waramayaan meelahaasi gobolada qaarkood xisaar yar buu ku sameeyay iyana sidii bay ku qabteen baytul laham buu qabtay madiinatul khaliil ba gacantii soo gashay baytul jabrin ba soo galay yani mudunu falastiin oo dhan intooda ugu badan gacanta muslimiinta ay waqtigaasi soo wada galeen intan markay gacanta soo galayeen kadib ayuu nasaaradu ogolaatay in heshiisyo iyo wax lala galo baytul maqdis waayo dagaalku xitiin buu ka dhacay xitiinna ilaa 195 kilomitir bay baytul maqdis u jirtaa baytul maqdis toos umu imana dhulkii kale oo dhan oo ay haysteen buu ka soo wada takhallusay inta kadib buu baytul maqdis yimi baytul maqdis markaas uu xisaar galiyay maalma markay ku jireen
ayaa manjaniiqyada lagu garaacay. manjaniiqyadu waa madaaficdii qadiimkee waagaa hore la isticmaali jiray. kadibna waxay aqbaleen ammaan in la siiyo oo ay isdhiibaan. sidii buu bayt almaqdis ku qabsaday. bayt almaqdis iyagu markii ay gacanta ku dhigeen wixii muslima joogay way xaaqeen, waa laayeen. salaaxaddiin alayuubi markuu gacanta ku dhigay wuxuu ku yidhi ammaan baan idin siiyey, ciddii joogaysa ee magaalada degganaanaysa ninkuu 10 diinaar buu iska bixinayaa jizye ah, ilmaha yarna 2 diinaar oo jizye ah laga bixinayaa, qofka dumarana 5 diinaar oo jizye ah bay bixinaysaa. ciddii rabta inay tagto xoolihiisana wuu qaadan karaa, waanu tegi karaa. wadaadkii batriik ahaa ee qadiiskoodii ugu weynaa xoolihii meesha oo dhan iyo wixii muslimiinta ay ka dhaceen oo dhan intuu qaatay ayuu wuxuu yidhi waxba yaan la taabanin. ciidan buu ku daray ilaa iyo madiinatu suur in la geeyo, dabeetana wixii ka dambeeyana uu halkaa ka sii baxo. taariikhda ragga qoran qayb ka midi oo muslimiinta ka midi waxay yidhaahdaan tasaamuxa salaaxuddiin xad af buu ahaa oo rag aan ahayn in la sii daayo oo tiro badan buu sii daayay bay yidhaahdaan. laakiin salaaxuddiin noocaas uu u dhaqmi jiray. yuhuuddii ugu horraysay markaa meesha ku soo noqota timaada salaaxuddiin bay la socdeen. salaaxuddiin waxaa la socday ilaa 12 tabiib oo yuhuud ah. waxaa ka mid ah muusa bnu maymuun. muusa bnu maymuun waa nin wadaad yahuudiya. ilaa hadda kuwa mutacasibiinta ee israa'iil degan qaybo ka mid waxay ku abtirsadaan inay madhabkii muusa bnu maymuun haystaan. muusa bnu maymuunna wuxuu ka tirsanaa dhakhaatiirta uu wato salaaxaddiin alayuubi, dhakhaatiirta ay ciidankiisu wataan buu ka tirsanaa. saasuu wuxuu u oggolaaday yahuudda qayb ka mida inay markaasi soo degto meeshii ay ka doonayaan inay degaan. waayo markii hore waa laga nimanka kiristanka ahi markii horena way ka baabi'iyeen. markii muslimku haystana waa kuwii cumar heshiiska kula galay inaan yuhuudi nala deganaan karin. markii dambe ay xoogga ku qabsadeenna may aqbalin yuhuudi inay soo degaan. taarikhyahanada reer galbeedku marka ay ka warramayaan salaaxuddiin si hayru caadiyay uga warramaan oo ammaan ay ka tiro badiyaan wixii uu sameeyey, maadaama in badan ilaa xad qaarkood ay sheegtaan war ninkuu hoostuu masiixi ka ahaa ama islaan masiixiyadaa dhashay ama khuraafaad caynkaasay qaarkood qoraan iyagoo diidan yacni ninkani tasaamuxa badan uu sameeyey inuu muslimiyey, iyadoo la ogiyay muslim mooyaane cid wax saamaxdaba inaan la arag. salaaxaddiin alayuubi magaalada qudus wuxuu ka sameeyey madaaris tiro badan. waxaa ka mid ah madrasadii caanka ahayd ee shaaficiyadu lahayd ee madrasatu salaaxiya iyo ribaad suufiya. ribaadku waa meel degaana cunana leh oo dadka cubaadii intay iska degaan ku cibaadaystaan. xataa masaajid baa looga dhex dhisaa. waa meel cunadii iyo cibaadadii iyo wax walbana ay ka helayaan. marka dadka ilaahay u go-ay unbaa iska geli jiray. nidaam caynkaasa ka jiri jiray caalamulislaami oo ribaad la yidhaahdo dadkaasi degaan. marka ribaad lisuufiyana wuu dhisay, madrasadana wuu sameeyey. madrasadan waxaan iyada gaarka ugu sii tilmaamayaa culammadii waaweynayda muslimiinta ahayd waa meelihii ay ka soo baxeen ama ay asaatidada ka ahaan jireen. raggii ninkii koowaad madrasada hayay waxa weeyaan ibnu shadaad ninkii la odhan jiray, qaadi alqudaat ibnu shadaad, nin culammadii muslimiinta casrigiisii ugu waaweynaa ka mida. waxaa ka mid ah ibnu casaakir nimankii madrasada ahayn jiray. waxaa ka mid ah ibnu salaaxi muxadidka ahaa saaxibu culuum alxadiid, madrasadaasi nimankii joogi jiray. madrasa qadiima bay ahayd. waxaa ka mid ah ibn اljazari saaxibu nashr fi lqira'ati alcashr, moxamed ibn اljazari. afarta wadaada aan sheegay afartaba waa shaaficiya. marka waxay ka mid ahaayeen culammadii madrasadan ahayn jiray. iyo cadad ghafiir min alculamaa ayaa ka soo baxay raggii madrasadaa joogi jiraya. maca alasaf waa dambe haddii wakhtigu inagu sugo waynu ka warramaye ayaa madrasadan waxaa loo bixiyey hadiyad oo waxa la siiyey ninkii ka talinayay boqorkii jarmalka la siiyey oo kiniisad baa loo bedelay. cahdi dowla alcuthmaaniya qayb ka mid ah ayaa hadiyad loo siiyey qunsulkii faransiiska ahaa naboleon الثالث iyadoo loo siiyey iyadoo la ictiraafayo faransa almaaniya maaha waa faransa tu kalaan tilmaami doonaayo ka almaanigaana la siiyey
sababta loo siiyeyna waxay ahayd meeshan hadda uu qabsaday Putin qiram meeshan la yidhaahdo ee uu Putin qabsaday qiram waa tataarkii muslimiinta abaa deganaa dawla al-Uthmaniya bay ka mid ahayd qaysarkii baa soo weeraray dabeetana faransiiska dawla al-Uthmaniya caawiyey si ay isaga difaacaan markaasaa Russia laga difaacay inay qiram qabsato oo ka mid ah dawla al-Uthmaniya saa daraaddeed buu abaalmarin u siiyey isna madrasada halkaa ku taala si kastaba ha noqoto magaaladii qudus la odhan jiray iyo masaajidkii iyo madaaristii tirada badnaydna laga dhisay saasay salaaxudiin gadaashi aan nimaadno dawla al-ayuubiya dhibta ugu weyna taariikhda islaamiga ee siyaasiga soo martay waxa weeyaan waxaan jirin aaliya لاستمرار الحكم أي مدحد كوكلا وريكتو إلى هدنا ولي مسلمينتو ما يتطويرين آلية داسي خلفاء الراشدين بأودن بيي آلية صحة وأي أمدي مدحد هذا كل دورته لقوريتيو وحي كدن بيي دحلتو يهي دحل كانت دادكو حولا ما هلا دحل أبهود ووحان شيرين دحلتو يدا سال لقوة دي dhaxaltooyadaasi waxay keeni jirtay markaa caruurta uu ninkaasi dhalay ama nimanka walaaladii inay isku dilaan yaa meesha qabsanaya salaaxudiin nin cibaado badan oo xikmad badan oo sabir badan oo geesiya waxaan u malaynayaa 24 sannadood buu madax ahaa 16 sannadood goob dagaal buu ku qaatay baa la yidhaahdaa 24 sannadood ee uu madaxweyne ahaa nin aad u xikmad badan oo xakiim u ahaa culamaduna aad agtiisa ay uga dhowdahay oo maamuusa oo la taliyaalay u yihiin laakiin raggii ka dambeeyey may noqonin sidiisii iyagii baa iskhilaafay dowladdii ayuubiga ahayd oo markaa min xijaas ilaa shaam ilaa masar ahayd way kala googo'day gobolba nin baa qaatay وانا ليسدلي قدس بين ينقو كورمين مركز قدس النسيب كيسا وحي كبيرتي الافضل علي بن يوسف بي قعنتي سقشك وانك كسم هي مدرستنا عنك المدرسه الافضليه هي الرباط المغاربه ماشان هذا لغو مرما هذه يقول مركز بيت المقدس القا ورمى بابك مغربي مالهنا يهود هذا سود لولين انا ما شيحنيا كميدا رباط المغربي waxaa loo siiyey maqaaribta wakhtigaasi ay dagaalada saliibiyiinta ku jireen bay taageero xooggan dawla muwaxidiin ka heleen oo ku saabsanayd doonyo iyo wax la mid ah abaalgud loo abaalgudayo in salaaxudiin ay waxtareen ayuu inankiisan cali ibn yuusuf kani u dhisay intaas uu ka siiyey wakhti markii la joogo الملك الأفضل واقيريودي ولالكي الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب أيا قبصدي لكن وحا غريبا نكا كاني وحولي قدس مبا هنا السور لغو وريتشيو سورر كي دفاع مقالة وهابو الدمية سيقول رقبا إنو نوينغا الدفاع إنما سورر كان نوكياني إيادو مقالة دي بلا سور اسكتهاي أي مرضا بان نمانكي سوهم قريين nin kaloo ay walaalahaayeen oo la yidhaahdo alkaamil ibnu axmed ibnu ayuub baa qudus qabsaday haddana laakiin kaasi wuxuu taariikhda islaamiga kaga qoran yahay ceeb waa ninkii hadiyadda u bixiyey bayt almaqdis mar labaad magaaladii qudus la odhan jiray nimanay walaaliyiin bay isqabteen iyo ilmaadeerayiin dabeetana wuxuu isiri intaad kuwan isdilaysaan hadday kuwan kiristanka ku soo weeraraan meeshana waa lagaa qaadan waxa kuu fiican buu istusiyey isagu inaad kiristanka la heshiiso sidaad kula heshiin kartaana waa inaad bayt almaqdis iyaga siiso nimankana markaa ay kuu caawiyaan aad iska dhiciso heshiis buu la galay ah inay qaataan bayt almaqdis masaajidka oo qura inay muslimiinta u reebaan inta masaajidku yahay muslimku ha xukuma buu yidhi laakiin magaaladii qudus la odhan jiray idinku qaata magaaladaasi waxay gacanta u gashay markaa فريدريك لباد نكي لورن شري فريدريك لباد ويوروب نكي البحيي ونكي هيستي ماشان سقيلين اللي يراهدو ان رجيني انا مركي دمانا انو دحلي المانيا
وأنكي سمية جامعات كي وجهرية يوروبا لقدسه جامعة بولونيا يا سارلون تنضم وجامعة دي كواد طب لقدسه ودن يوروبا ودن تكلنا وجامعة دي وجهرية يوروبا لقدسه أي يوروب جامعة دي أقون ما يقونين نين كانوا مركا مسلمين تأقون تودي رأي أي الله بدن جامعة دو سمية على كل حال فريدريك اللباط وملك فرنجا أي قبصدي ماشي قدس لورنشري مركلة أي بيت المقدس وحي قعنتا نمانك كريستيان كا كوشرتي شن إيا طبان صنادات بي هدنا دي بغتالينيه ننكاسي مركو سييه كدب تاريخ دو هجري مركا يمارسي اللي حبغالية تضبية صدنكي أي الملك الناصر داود كان مدى ولا لهايين كوي سيين كان مدى با دقال السوق هذا كان با قبصدي مركا دي بوغو حريي لكن مدير مركو يسنة شوقي أي استلين أديركي أو مصر هيستي الملك صالح نجم الدين أيوب أديركي بيستلين ومصر هيستا سيو كمصر السجع عليو أي هدنا نمانكي دي بلوغو علي لا يدور مسيحيين تايسكا غاتا كان نكاسون إلى الريحة مركا واحد أركيسا مسلم كو مركا ستو وشبي تاريخ دي سمركا دي بقول نقطه وامروا انتو يسقوا استيلاء قال هذا وكلا دونتي مسلم ودشرة او تاريخ قال كحق رونادي لما هيو مر لبعض بهدنا قعنتا نمان كاسيد بقول نقطي اللي بقول يكوبي افرتنكي لكن مر كان ضمبه واحد بدن قعنتا ودكم يشيرين واحد دي بقول حريين كاسي نجم الدين ايوب هيستي مصر اي دي بحريين عصرك أيوبي أنت هذينو أنت أكو صور دافنو سلاح الدين حريي نكمل ده شيء ديبو ديبي متكمل ده شيء ديبو حريي هدنا ديبو ديبي نمي ولا لهاي نجم الدين الملك العادل لورنشرو ديبو حريي وقت أيوبي أنت أسيكو دمات وحب لما عصر عصبه العصر المملوكي دولة الأيوبية وين دماتي دولة مملوكية بابلابنتي نجم الدين أيوب عم في لي ملا حملات كي متكمدة كريستان كوساق هذين شناد مسلحات مدهان أي يسقط دجال كوتشيرة ومصر غير كده اللي يسكت ليه أيو يسوي جريودي وإسلامتي معروف كهيدا شجرة الدر لورنشري مركا قارسي دمشقي دبتنا إنه نولي هاي بكردكتي سيدي بمسلمين تو دجال كوجالين sidii baa lagu jabiyay nimankii gaalada markii la jabiyay kadib ayay inaan u dhalay ku wareejisay madaxnimadii islaam fariida bay ahayd nimankan mamaaligta ahi waa dawlo iyana muddo dheer caalamul islaami ka talinayay waa niman asalkoodu waa turkiyana asalkoodu waa khawaarizmiyiin iyo saqaaliba ina waa niman taariikhda islaamiga in badan caan ku ah sababo daraadood kow niman culamadana jecel bay ahaan jireen waayo qaab najmu ninkani markii uu groupkan samaysanayay العادل الأيوبي مركو جروب كان سبيسانية انقلاباتكم مركي باتين بدت كان كشكية دلنيار ودن كاكا كان صدي دلنيار دا ميل بكو حريي انت يشانية تبنشير كيرين دين بالا برا علماء مركا لقد دقو كدب أي كلية عسكرية لقالية أسكر بالا لقد دقا مركا وحي هانشير إننا من علمك الشريعة نصفي عنه يقارنا علمك عيدا كنسي ونكسنه يقارنا تاريخ الإسلامي مركا marka laga reebo inqilaabadii iyaga dhexdooda ahaa waa niman bari iyo galbeedba muslimka difaacay waa mongolianiski tatarki waa nimankii jabiyay xamlaad tiro badan oo ay lahaayeen nimanka masiixiyiinta waa nimankii jabiyay madaaris aad u tiro badan la way dhiseen waxay isugu faani jireen nin waliba inuu madaaris iyo masaajid inuu waqfiyo aad bay kuwaana u sameeyeen casrigoodii waxaa la yidhaahdaa shaam iyo masar iyo xijaas iyo yeman aad bay u kobacday baa la tilmaamaa ilaa iyo mudda iyaguna maamulayeen muddadii iyagu haysteen kristan ma soo hunguraynin bayt almaqdis iyo agaarkeeda bale mamlakadii qura ku hadhsanayd ee antakiya ahaydna way ka xoreeyeen sidaa awgeed bay noqotay caalamulislaami intii loo yaqaanay inay gacantooda ku jirto qaybtaasi
وأنا وحكى لك جرين أخيرا دولة دودو يجونا وحيد دونتي الدولة العثمانية مركي أي حوغي ستي سليم الأول أيا الشام سليم الأول وتركيا ماذا حديثي بور كمدا دولة التركيدو أما الدولة العثمانية ما كانوا ناهنو وحي كجهي سنيد حاجة كريستنكا وحي كجهي سنيد يوروب يسيدا يوفرون لهاي لكن يدو دقال لحوغن حاجة كوضة أي حاجة نمان باطنيين كسم اسمين الدولة السفوية تانا يمكا إيران كو أبترسطو وهي إيران سنيين بيهان جيرين شان قرني وحي كهريي وخراسان يدولك علماء المسلمين تكسوبيع جرتي أيان نينكاسي من سفوي إسماعيلية دبتنا ماشي بو قبصدي مسلمين تبو قماضي شيعة نمدي بو حوشيي إيران ودن بو قبصدي وصاص سعودي قيب كمدا عراق ودن بو قبصدي وحو كعبصدي مركز سليم نينكان يدف توضو وحو حوشيي دقالة يوروبا دي بو صار نقضي دبتنا وحو اسكو صادر عالم الإسلامي دمانتي يدر رتين وقبصدو وحو قبصدي مصر يوحي أي هيستين أردن شام بو كبلابي ممالك عيدا كي وجودن بي شام بي مادين قال سوان لا يراهدو ما لا يراهد مرجو دابق oo Suuriya ku taala la isku galay wuu jabiyay saasay kula wareegeen dawlad mamalik oo dhan dawladii shiicada hayna aad buu u eriyaday ilaa uu dhul badan ka qabsaday waa dawlad Uthmaniya waqtiyadii ay ugu dhulka weynay yani 1.5 million square kilometer in ku dhadhoway dawladiisu gaadhay baa la yiraahdaa markii ay soo galeen mamaalikta waxa lagu jabiyay baa la yiraahdaa farsamaana aqoon bay dawlad Uthmaniya keento madaafiicda lagama aqoon caalamka islaamiga sokay marka madaafiic buu la soo galay dabeetana xalab agteeda meel buu ku jabiyay ahdiga ay haysteen dawlad Uthmaniya وأنا عهد عصب مركز قدس هي قضية هذا اللي جوا الرمية. إن مدة نمكي كهرية ممالكتي يو قريب تاسي دمشق وحروش هذا قدس آد بعهد المملوكي وقرطي مدارستي علم جو عن سر الله يقان التاريخ الإسلامي يتربض بكردستان وحكم ذا المركز مدرسة دي التنكزية اللورنشري المدرسة الكريمية المدرسة الأمينية المدرسة اللؤلؤية المدرسة الجاولية انتو بقى آثارتو دي قارنا ولي سيدي بابا وشقيان آثارتو دي انتو بقى ولي وكتاقيين بيت المقدس مركاتكتو دولة العثمانية مركينو نمادنية تركيدا ورطاني مكا تركيدا الله يراهدو ان كن صندو دين كدو بي مسلمين تدفاعية لكن دادكو انت بدان تركي مركا الله شيغا وحون بي أفهمان دولة العثمانية مركا لغا صوب بلابو دولة الخوارزمية تركي بيهي دولة السلجوقية تركي بيهي دولة الغزنوية تركي بيهي دولة طولونية تركي بيهي دولة المملوكية تركي بيهي حتى الدولة الخشيدية انتبه واحد عن دول كاسو دمي اسر تركيا بيهاي وهدتكي كيمي دولة دهان هدا كاقو اي راشنكا يدول كاسي دتكي دغنان جري marka asal ahaan caalamul islaami kan kale xukumayeen ama dhulkii carabtu deganeeyay waxan bay xukumayeen laakiin asal ahaan waa dad atraaka marka la wada eego marka la isku daro duwalkii turkida ahaa kun sanadood in ku dhadhowbay ka talinayaan caalamul islaami siiba ahlu sunnaha ay difaaciyeen manaaqiqaad u ballaadhana waa xukumayeen laga soo bilaabo jaynada calkeeda إلا فيانا دعال كذا أنت كدحله دولة إسلامية تركيا كلا نوع عهد بكتليسي إلا أخيرا كون سجال بقول يا أفري الله باتنكي صدح دي مارش وكتخلصيني كي لورنشري مصطفى كمال أتاتورك ونن علمانية أسل كي سنة مرنكوشرو ما يهودي با ما تركي بادا أسل كي سنة لغوبا مرمو كون كاسا ندود بيتلينيين هدين ودي بقول نغنو سليم مركو قبصدي ماشة حجاز يا بيت المقدس يا دول كانودا ميوي صهاس كلان دولة هاسي إن بدن بي دفاعيين دولة دي إسلامية هاي أما قدس
qudus waxa ku soo talagalay inay qabsadaan mar Portugaaliyiintii الحضارة البرتغالية markay doonyaha ama maraakibta yeelatiya madaaficda waxay isku dayeen inay madiinana qabsadaan bayt al-maqdisna qabsadaan dagaalo badan bay la galeen waa jabiyeen kadib holandiyiintii bay jabiyeen kadib ingiriis bay jabiyeen kadib faransiis bay jabiyeen intaasoo goorba dawla al-Uthmaniya waxay ilaalisay bayt al-maqdis iyo xijaas inaan gaalo soo dhawaan karin laakiin iyadana xanuunkii uuna caalamul islaami gali jiray baa galay oo ah khilaafadu istibdaadku markuu galo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya la tanqudunna cura alislaami curwa curwa xukumka islaamka guntimihiisa guntin baa u furi doontaan markaa guntin furtaanba ta ku xigtaa ku dhegi doontaan guntunta ugu horraysa ee aad tuuri doontaan buu nebigu yidhi waa xukumka guntinta ugu dambaysa idinka lumi doontaana waa salaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni islaamnimada mar kama wada tegaysaane kolba qayb baa la dayacayaa buu nebigu tilmaamaya waana kii nebigu sheegay khilaafadu dee 30 sannadood uun inay noqonayso 30kuna waa 30kii dee khilaafa raashida ay joogtay guud ahaan waddankii shaam loo odhan jiray waxaa qabsaday dawla al-Uthmaniya dawla al-Uthmaniya system bay u dhisnayd la yidhaahdo marka hore wilaayada waxaa ka horreeya mutasarrifa baa ka hoosaysa mutasarrifiyada waxaa ka hooseeya qadaaga waxaa ka sii hooseeya naaxiya wilaayadu waa gobol dhan oo markaa amiir leh inta ugu badan leh wilaayada markaa laga yimaado gobollada wilaayada ay u qaybsantee waaweyn mutasarrifiya baa la yidhaahdaa mutasarrifiyadaas ama wilaayadii cuthmaaniyada haddaynu soo qabanno bayt al-maqdis waxay hoos tegaysay markii hore taqsiimaadkaasi ay iyagu samaysteen taqsiim ka mid ah markii dambena mid gaara oo laga xukumo santarka ama dawla al-Uthmaniya boqorku uu toos u xukumo ayaa laga dhigay waxay u sameeyeen wax tiro badan waxaase wakhtigaa bilaabmaya wixii ka dambeeyey ضعفigii ay soo gaadhay dawla al-Uthmaniya waayo dawla al-Uthmaniya inta ay haysato dhan waan ka soo boodaya waayo lama hunguraynin bayt al-maqdis in si xoog lagu qabsado waxay ahayd wixii intaa ka horreysay baa xoogga lagu dayay laakiin markan iyagaa noqday dawladda ugu xoog badan ee dunida ka talisa waxaynu iman karnaa markaa aakhir الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد والقضية الفلسطينية إيو كريستيان زيانيسم كماركو صابحي حقيقة وحويان يهودي بيت المقدس يا فلسطين ما يقبصنين وحا قبصدي حقيقة نبطة كريستيان زيانيسم كريستان يهودوبي waa madhabka Protestant-ka marka isagu muxaadara gaar u baahan yahay halkaasaan maanta ku joojinaya wassalaamu calaykum waraxmatullah midnaan idan xasuusiye shacabkaasi hadda maynan agteena kuma ammaanayn marka in iskama daysaan baa ka roo muslimku inuu takbiirta iyo inuu ilaahay mahadiyo iyo farsamo kale inuu naqaanaye farsamada shacabku inagama tirsana assalaamu calaykum